وأنا كشينا عليها محد بيك وحنا لنهاي ورفعها قلت دفكوا بحه ما أنا أول بالك على صوف الدا هذا الحلم على صوف الدا وروح يحل السودان ما كلها نعلى شيء ده ور السودان أنا كل هذا منه أنت كبدنا كورن كرمينه وهرميش إسكقة وجهك قويان كورن محيته حاس ما أنا أول وده تك هذا الباكاس ولا محيته سيدي حاكي بهذا الكوق بنايا مركز هذا وحبي حيرنين وهذا الكوارع كلهنا وحلي نروح نملو بكودع ورنا ملدر بكودع هذا الكي أتري ما تقف سوماليا ودقيه ساكودع يومين كنحن مجرو ورافع قوت نعلى شيء ده كيال محمد بيك مركان إيجي ودنا عول بكدكتي وحنا اللي كانوا نندوهن ده ما اسمه iyadoo aan ognahay ninkaasi godobti uu ka galay ummadda Soomaaliyeed ee tirabeelka ahayd maanta ay u darnayd oo iyadoo qaraxi la ogaa oo ummadda Soomaaliyeed ku dhamaatay oo magaalada Muqdisho ka dhacay oo dunyada oo dhan ay dhabanada la hayso oo inala murugaysan tahay buu magaalada London si jees wuxuu uga yiri hadal xurkiisu ahaa qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya waxa ka mas'uul ah Soomaaliland bal waa kane hadalkiisa ila dhugta oo ila dhuux waxaan ka codsan lahaa inay Soomaaliland sii daayaan iyaguna nabad bay helayaan waayo hadday u ogolaadaan itiraafkooda qaraxa iyo dhibaataduna way ka baxaysaa waa walaalahood Muqdisho haddii la iga maqlay waxaa loo lahaa Soomaaliland sii daayay tan waa dhafoorrahays weeye hadalkiisu laba mid buu noqonayaa inuu qarxiyay sirda soonayd oo Somaliland ay ku lug leedahay sidoo sheegayo qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho iyo inuu dadka Soomaaliyeed ee Somaliland dambi aysan lahayn uu dhakada ka saaray waa musharaxii shil ku reebashiina culay oo maanta doonaya BK waxa weeye oo nin waxa weeye aan waxba laga qorin waayay isugu dhuftay inuu gabigiisaba barida dhulka ugu dhufto waxa ka codsanaya video kan ina si share gareysaan qof walbo arkana uusan dhaafin si uu fariintaydaas isaga u gaarto nacala shida ku yaale janaalkay hadii hore subscribe u saarina hadda subscribe saarta si fiidiyoyada u rugumataan like iyo comment-gana soo badiya Maxamed BK waxa weeye markii ugu horeysay ee ummadda Soomaaliyeed qadaf u geysto oo uu godob ka galo maaha doraad been ogeyn oo wuxuu yiri xamar tagideeda xabad baan ka xiga iyadoo tii la yaabay yahay oo meelu raali gelin kaga bixiyay aysan jirin buu shalay hadana wuxuu la soo istaagay ma Muqdisho mise inta kale Muqdisho iska maqnaato dhibaato magaalada Nairobi loogu geystay buu caradii wuxuu kula dhacay magaalada Muqdisho waa caasimadda waddanka Soomaaliya Nairobina waa caasimadda waddanka Kenya wixii Nairobi xumaana oo isaga ka gaarto waxay ahayd inuu Kenya u qaato wixii Muqdisho ka gaarana inuu Soomaaliya u qaato Muqdisho aanu tagin agteeda marin wajiga wanaag u hayn buu godob magaalada Nairobi la yiraahdo lagaga soo galay buu caradaandaankii waxaan maqli jiray waxa weeye kan yar iga qabo oo kan weyn ugu sida buu Muqdisho kula dhacay iyadoo waxaas ay taagan tahay oo taana uu saraali gelin ka bixin waddanka Ingiriiska la keenay Ingiriiska waxa lagu keenay oo lagu casumay barnaamij la yiraahdo Somali Week oo Soomaali loogu tala galay oo dawladda waddanka Ingiriisku ay maalgeliso سفارة سوماليلاند leedahay ma casumin halka safaarad kuma le jaaliyad reer Soomaaliland ma casumin Somali Week barnaamijka la yiraahdo oo dawladda Ingiriisku ay maal geliso oo loogu tala galay sanad kasta in lagu keeno dadka Soomaalida xulka ah ee fanaaniinta iyo abwaanada ah si ay ummadii Soomaaliyeed oo Ingiriiska ugu noolayd ay inta ugu yimaadaan ugu madadaaliyaan oo dawladda Ingiriisku ay maal geliso oo magaca wasaa ka arkaysan Somali Week la dhaho baa ninka lagu keenay fanaaniinta Soomaaliyeed oo meel walba taagan isaga iyo nin iskalaaji la yiraahdo oo fanaan oo Canada laga keenay baa laga soo xushay ummadda Soomaaliyeed waxa weeye wixii uu u geystay xalay dhalay ka noqotay waxa la yiri waxa ayaan loo qaban halkeeno nin Soomaaliyeed weeye inuu ku bogsoodo oo markuu arko ummadda Soomaaliyeed inay soo dhaweysay oo ay wanaaga u gashay inuu wax iskaga bedelaan baa laga yaabaa Ingiriiska wuxuu ugu doolay baasaboor Soomaali leedahay waa ogtiino Soomaaliland baasaboor ma leh hadee leedahayna lama aqoonsana meel lagu ma tago Itoobiyaada ku dhagan lagu ma gali karo Ingiriiska wuxuu ku tagay oo fiisa lagu siiyay baasaboor ummadda Soomaaliyeed leedahay Ingiriiska markuu tagay halkii ahayd ummadda Soomaaliyeed inuu isu soo jiido oo uu isu keeno nuxurka hadalkiisa gadaal baan ka gali doona si xunna daqala ugu dambeeyaan u garaaci doona yaan maxaa ku raadaay hadalkayga laga digdig marka halkii ay ka ahayd ummadda Soomaaliyeed inuu isu keeno
waxa weeye markuu tagay masraxii markuu soo fuulay calanka Soomaaliland buu la soo fuulay sidii in Soomaaliland casuntay sidii dadka meesha fadhiya oo daawanaya oo cajab leh oo cadaan leh oo Soomaali haan walba leh oo deegaan walba leh oo reer walba leh sidii inay yihiin jifidiisa waxa weeye buu calanka Soomaaliland la soo galay lagama xumaan laguma canaanan waa la iska daayay show buu qabsaday waxa weeye Soomaali oo dhan baa u istaagtay nin baa mushtar ku jira oo tigidhkiisa iibsanayo ahaa waa loo tagay xaalay buu show kala qabtay markuu showga kala qabtay iyadoo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ogtihiin masiibadii magaalada Muqdisho ka dhacday ay dhulgariir inoo ka xumay oo 100 qof dad ka badan ay inoo ka dhinteen 130 qof in ku dhowna ay ku dhaawacantay oo xataa Turki oo aynan diin aan wadaagno oo Afrika iyo Asia aynu ku kala naalo u diyaarado inoo soo diray oo adduunkii gaaliya islaamka loo inoo danqaday oo TV-yada wararka laga akhriyay wariyaashii akhrinayay ay baroorteen oo dhabanada ay qabsadeen buu wuxuu isagoo ninkaasi nin Soomaali ah oo aan isku diirnahay oo isku dadnahay oo isku dalnahay oo isku luqadnahay oo wixii laba qof wadaagaan xigto xigaal ehel wax walba nasabad diin dhaqan aan wadaagno buu intuu masrax soo istaagay oo ugu talagalay inuu ka heeso oo uu dal lacag ka qaatay buu halkii ahayd ummadda Soomaaliyeed u timi ee reer walba leh inuu u heeso halkii ahayd buu hadal degdega la soo istaagay waxaan isri Maxamed Biiki hadalku wuxuu u qabtaa sida xaarku dadka u qabto uu qabtaa ma isri hadal yaa u disaday inuu hadal buu meesha la soo istaagay muxuu yiri hadal la soo istaagay waxa weeye Muqdisho waxaan u sheegayaa inay walaalahood Somaliland iska sii daayaan si ay nabadgelyo u helaan Somaliland inay fasaxaan oo sii daayaan si ay nabadgelyo u helaan macnaheedu waxa weeye Somaliland haysashadeeda iyo amni darrada magaalada Muqdisho ka taagan waa isku sidkan yihiin haddii Somaliland si haysataan nabadgelyo ma helaysan haddii Somaliland ictiraaftaan oo sii daysaana nabadgelyo helaysan waa isku sidkan kama dhamaan intaas wuxuu ku daray haddii Somaliland ay ictiraaf hesho haddii ay Somaliland ictiraaf hesho waxa weeye qaraxyada iyo dhibaatada baa in ka joogsanaysa macnaheedu taas waxa weeye Somaliland baa hadda dhibaatada in ku hayso qaraxyada in ku haysa sababtoo ay ictiraafkii baa ka hor istaagantihiin haddii ay ictiraafka u ogolaataan oo siisaana qaraxyada iyadu in ka diisanaysa waa sidaas weeye macnaheedu waa sidaa inta kaga harin halkii ahayd dadka inuu tacsiyeeyo buu wuxuu u gudbay Maxamed Biiki inuu Somaliland amaano oo yiraahdo Somaliland qaran jira weeye madaxweynayaal badan bay lahaayeen kanay lahaayeen cid hor istaagi karta male Maxamed Biiki waxaan u sheegaynaa Somaliland waad amaani kartaa waana amaanan tahay wax badan oo lagu amaano oo cajab iyo cadaan iyo cid kasta ay ku amaanaysana waa jirta anagu marxaati aan ka nahay dadka inay yihiin dad tashaday nabadgelyadooda ka shaqaystay horumar jooga ma ladan oo walaalahaya waxa amaani kartaa dadkaaga hadaa rabtid inaad amaantid oo faanisid inkastoo la yiri waxa la yiri nin isfaanshay waa isnuugtay ina adu isfaaniso ma waa in dadka kale ay ku faaniyaan yeelkadeeda hadaa isgaratay oo ay dhaqankaaga iyo dadnimadaada ku siisay ina adu isfaanto oo isnuugtay aan noqoto waxa ahayd Maxamed Biiki adoo ummadda Soomaaliyeed aan u soo marin oo ummadda Soomaaliyeed hadal xajiin leh oo waxa weeye boobaha iyo argagixisada maanta dhibaataysay ugu raacayso hadal adoo halka aanu mar waxa ay Somaliland ina iskood u amaanto adoo Somaliland aan isku xuqin oo Soomaali kale isku xuqin ina tiraado anagu Somaliland baan nahay waxaan qabsanay laguguma yaab cid kula yaab lahayd ma jirto cid ku ceebaysan lahayd ma jirto Somaliland meel walba istaagto waa ka amaani jirtay waxa weeye calankeeda la soo bixi jirtay wax shida ama lahaatay saas loo arki lahaa laakiinse maanta hadalka aatri oo la soo istaagtay meesha la soo istaagtay macnaheedu waxa weeye annaga meesha qarxina hadalka laba marka mid weeye saan hore u soo sheegay laba mid weeye ina dadkii Somaliland oo Somaliland aad dhakada ka saartay dambi aysan gelin iyo sir aanan annaga ogeyn ina ogtahay oo qarxisay oo ay runta tahay ee qaraxyada sida u sheegayso ay Somaliland ka dambayso iyadoo uga gol leh Soomaaliba aniga ictiraafiga hortaagan iyadana nabadgelyo ka hor istaagay marka Maxamed Biiki waxa weeye hadalkiisaasi waa hadal shaki weyn abuuray waa hadal ummadda Soomaaliyeed kala deeway hadalka uu yiri ninkaasi
siduu rabo isagoo hawlo joogo waxaan idin sheegayaa ummadda Soomaaliyeed tuhunkani markii ugu horeysay oo uu yimaado ma aha waase markii ugu horeysay ee Soomaaliland qof maqaamka ka taagan uu hadalkaasi ka soo dhaco weey laakiin horey baa tuhmadaasi u jireen adduunka sirdoona caalamiga baa dhowr jeer hore u sheegay oo Soomaaliland iyo argagixisada al-shabaab la yiraahdo inay xiriir ka leedahay waxa weey riboodiyo badan oo hore baa laga qoray waxa weeye ninkii al-shabaab asaasay oo muddada ugu dheer madaxda ka ahaa oo ururka xooggiisa waxa weeye isagu ka dameeyay in godan u ahaa nin reer Hargeysa ah oo walaalkii xataa tani ku xeenka ciidanka asluubta Soomaaliland yahay oo ahaa reer Hargeysa oo ahaa tuhunadu iska badnaayeen laakiinse waxa cusub oo ugubka ah u yahay qof maqaamka Soomaaliland kule oo heerka ka jooga inuu maanta si bareera meel u soo istaago Soomaaliland haddii argagixisada al-shabaab ay garab ka saartay oo sida uu sheegayo ay runtii tahay ay ka dhabto maanta ay garab saartay adduunyada waa ka dhacda waxa la socotaan argagixisada tan ka dagaalamaysa Suuriya in qaarkood lagu tuhunsan yahay inuu Mareykanku gacan siiyo oo asaaskeeda lahaa waxa la socotaan Mareykanka laftigiisu wadamada ay xulufada yihiin khaliijka ee qadar leh ee imaaraad leh ee imaaraad ka saar ee qadar iyo Sacuudiga iyo Turkiga inuu qaarkood ku eedeeyo inay urgugixiso ururo argagixiso ah oo xaq jira oo Liibiya oo ka dagaalama Liibiya iyo Suuriya in maxaan ku raahdaa wadamadaas ay taageeraan waxa la socotaan Taalibaanka maanta Mareykanku u taag la'yahay inuu isagu asaasay oo Afghanistan isagu u sameeyay si uu ugu la dagaalamo midowgii Soviet oo Afghanistan ku soo duulay oo ay u jabiyaan oo midowgii Soviet ay meesha uga saaraan markii ay midowgii Soviet jabiyeen oo midowgii Soviet uu meesha ka baxayna inuu isagii u soo jeesaday oo uu damcay inuu marka burburiyo hubka dib uga qaato tiina ilaa ay hadda waxa la yiri nin abeesa waxa weey wadkeed kursatooy waqwaq ma ka yeertay Mareykankii 15 sano miya mise 20 sano ku dhawaad uu iyagii la dagaalamayo oo u taag laayahay oo soo afjari kari laayahay maalin walba markii ay baabiyeen oo nafti u keeneen uu hadda wada hadal kula jiro oo rabo inuu maxaan ku raahdaa heshiis nabadeed la galo dhow Afghanistan faraha idin ka qaadaya idinkuna danahayga iyo wadamada xulfada nahay iyo dalkayga iyo dadkayga faraha iga qaada marka adduunyada wadamadu way taageeraan iyo maamulada iyo shirkaduhu argagixiso iyagoo kale dana istiraatiiji ah oo ay fulinayaan Soomaaliland marka haddii warka Maxamed Biike uu sheegayo uu xaq noqdo uu sax noqdo oo war xaqiiqa u yahay macnaheedu waxa weeye Soomaaliland cid urur argagixiso taageerta oo dan istiraatiiji ka mudata oo istiraadahaynii fulis ugu horeyn adduunyada waa wax caadi ka ah siyaasaddu iyada noocyo badan weeye marka laakiin waxa weeye adduunyada hore waa u soo qortay inagu waxa weeye tuhun baa jiray hore u jiray kiiba Maxamed Biike si xoojii laakiin wax xaqiiqa u qaadan meeno ummadda reer Soomaaliland ee dawlad leh ee shacab leh ee sharfan waxa laga doonayaa hadalka Maxamed Biike inay dhahaan anagu beeri baan ka nahay lama qabno kulama socono kulama jirno walaalaha iyo wixii ku dhacay waa ka xunnahay ururka argagixiso maxaan ku raadayay ee dibta Soomaali ku ahayana waa urur argagixiso oo inagoo dhan dhibaatayna ku wada haya waxa la soconaa al-shabaab Soomaali kaliya inay khatar ku ahayn inay gobolka dhan khatar ku tahay inay adduunka dhan khatar ku tahay waa sababta midowga Yurub ay ciidamada AMISOM mushaharka u siiyaan oo ciidamada Soomaaliyeed u dhisayaan waa sababta Kenya iyo Ethiopia iyo Uganda ay ciidamada wadanka u soo galiyeen weeye al-shabaab waxay khatar ku tahay gobolka iyo dunida oo dhan bay khatar ku tahay Soomaaliland gobolka ku taala dunida ka mid tahay wixii Soomaali dib ku ah Soomaaliland waa ku dib waxa weey dad isku mid ah isku dad ah isku deegaan ah wali adduunyadu hal dal u wada aragto inagu aan kala cararno ama aan isku orodno ama aan isnacno ama aan isjeclaanay adduunyadu waxay noo aragtaa Maxamed Biike dad isku mid ah baan u aragnaa waxa la socotaa waxyaabaha tuhunka keenaya waxa kamid ah Yurub baan joognaa Germany oo sirdoonka adduunyada ugu khatarsan leh farar argagixisa ka dhaca Faransiis farar argagixisa ka dhaca Ingiriis waa ka dhacaan Mareykan waa ka dhacaan Ruush waa ka dhacaan China waa ka dhacaan meel waa ka dhacaan Somaliland oo dawladda aan aqoonsiga haysan oo iska tabarta darana aan garanaysaan fal argagixisa kama dhaco waa ilaahay xamdigi weeye in ilaahay ka maxaa ku raahdaayay ka uu indhasaabay oo ilaahay maxaa ku raahdaayay isagu oo waxa weeye dibta ka badbaadiyay waa wax suurtagal ah weeye waana u badan tahay
laakiin shaki waa keeni kartaa war argagixisada al-shabaab la leeyahay iyo argagixisada caalamiga oo adduunyadii faraha baan ku haysta oo maxaa ku rahay Soomaaliya meel walba kamida Puntland baa ugu soo durugsan oo xataa saldhigyada kule oo maalin walba dhibta ka geysanaysa oo Kenya ka geysanaysa oo Soomaaliya maalin walba qarax ka geysanaysa oo caasimadii inta ciidan la geeyay oo kuwa Soomaaliya loo dhisay oo AMISOM la keenay oo Turki joogo oo Belarus joogto waxa weeye laga badbaadin kari la yahay maxay Hargeysa uga dhici waayeen Hargeysa ma kaamirooyin aan Faransiis iyo Ingiriis haysan bay haystaan Masirdoon oo Mareykan waayay bay iyagu haystaan ma awood aysan Ethiopia iyo Kenya lahayn ba Soomaaliland leedahay waa waxyaabaha tuhunka keenaya laakiin waxa laga rabaa ummadda Soomaaliland waxa laga rabaa tuhunka anagu waxa Maxamed Biike yiri xaqiiqo u qaadan mayno hadal waxa weeye shaki la weeye oo tuhunkii jiray si xoojiyay idinka marka waxa la idin rabaa ummadda Soomaaliyeed inaad tuhun saartaan oo tiraadaan Maxamed Biike hadalka uu yiri anagu lama qabno waana idin tacsiinayna waana ka xunnahay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cifro arinta waa ka hadlay waa ka tacsiiyay dadka halka ka dhacay maanta ka hadlay waa ka tacsiinaya laakiin waxyaabaha nasiib darooyinka waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ilaa iyo hadda inuusan ka soo tacsiin marka isweydiiyo oo Muuse Biixi Cabdi ma hadalkii Maxamed Biike buu la qaba muxuu soo tacsiin la ma Erdogan ba naga xiga anaga Muuse Biixi ma maxaa ku yiraahdaa ma Trump ba naga xiga ma Putin ba naga xiga Ruushia Mareykan iyo Ingiriis inta waa laga soo tacsiin maxaa u diiday Muuse Biixi dadka walaalihiisa oo halka ku shuf iyo maxaa ku yiraahdaa beelay oo argixisadu laysay ya maxaa u diiday inuu ka tacsiiyo shalay markii fatahaadu ay ku dhufteen beledweyne reer Soomaaliland soo ku gurmanayo lacagta ururinayay Soomaa masiibadii ka dhacday beledweyne iyo tan Muqdisho ka dhacday maxaa farqiga u dhaxeeya yahay tan Muqdisho xun iyada daran tii beledweyne waxay ahayd masiibad dabiici oo xaq rabbi inoo ka timibahay tii ka dhacday magaalada Muqdishona waxay ahayd wax bini aadan sameeyay oo masiibo ah oo argagixis ah oo laga wada naxay oo inta wadada oo waxa weey maatale oo nooc walba leh oo arday leh oo waalid leh oo cid walba oo ku basbeelan labada tanaasi daran marka Soomaaliland hadee beledweyne u danqatay hadii wabigii nagu soo fatahay u danqatay maxay ugu danqan weyday argagixisada oo ay uga dhiidii weyday argagixisada nalaysay oo Muqdisho dhibta inta la ka geysatay isweydiiyo Muuse Biixi marka waxa laga rabaa xukuumadda Soomaaliland waxa laga rabaa reer Soomaaliland dadkooda wax garadka waxa laga rabaa inay Maxamed Biike hadalka uu yiri ee shakigi jiray waxa weeye baasiika ku sii qabtay inay yimaadaan oo yiraahdaan anagu Maxamed Biike waxa lama qabno kulama socono naguma metelo intaas baa laga doonayaa dadka hadda hadlay oo gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiyaha xisbiga wadani uu kamid yahay injineer Cirona dadkaasina iyagu waa ku mahadsan yihiin xukuumadda intaas laga rabaa dadka Soomaaliyeed dad walaala ah weey dagaal baa in kala gaaray burbur baan soo dhexmarnay dadku wax uu kala tabanaya in la sii kala fogeeyo oo hadalada delqaaf oo dadka aan kala qaban karin kala yiraahdo ma aha dadka Soomaaliyeed qof walba waxa ku waajiba inuu dadka isu soo jiido baa ku waajiba qofkii arka in wax la khaldayo ama group gaar ah ama koox gaar ah ama dawlad ama maamul ama qabiil waxa laga rabaa inuu dhaho war ka daaya sidaas ma aha ay ka daaya oo dadka walaalihiisa oo nastaxayo anigoo oday Soomaaliyeed waxaan ku dhawaaqayaa Maxamed Biike showga uu ku leeyahay Ingiriiska anoo ummadda Soomaaliyeed ciimamadooda sida oo ku hadlaya afkooda fariinteedana waxaan rajeynayaa qof walba Soomaaliyeed inay gaarto anoo ciimamadii Soomaaliyeed sida waxaan ku dhawaaqayaa Biike showga uu ciid maxaa ku sanadka cusub ciida gaalada uu rabo inuu ku qabto London haddaan Soomaalinahay waa qaadacnay qoftay karana male anoo oday Soomaaliyeed go'aan ka gaaray qof Soomaaliyeed oo dhig ku jiro ama Hargeysa ha u dhasho ama meel kale ha u dhasho ama Muqdisho ha u dhasho Soomaali ba haduu yahay ninka hadalkii uu yiri wuxuu ahaa hadal deeqaaf ah oo Soomaali oo dhan meel kasta joogo Soomaaliland ceeb ku ah oo ummadii kala cambaar ku ah oo cid walba dhibaato ku ah marka showga uu Ingiriis ku qabanayo waa qaadacnay business ka uu doonayo waa inuu arko xanuunka ee leedahay dhibaatada showga Biike waa qaadacnay oday Soomaaliyeed ba go'aan ka gaaray waa ku celinaya fariinteedana sheer gareeyo qof walba gaarsiyo Soomaaliyeed anoo oday Soomaaliyeed oo koofiyada Soomaaliyeed sida oo ummadda Soomaaliyeed matali kala afkoodan ku hadli kara waxaan halkan kaga dhawaaqayaa showga Maxamed Biike uu doonayo inuu ku qabto Happy New Year-ka magaalada London
inaan qaadacnay Soomaali qof tagi kara mid tagi goosan kara mid agmari kara ma jiro oday Soomaali baa inta qaadacay Soomaali qofku ciduu rabaa ama Hargeysa ka yimaado ama Muqdisho ka yimaado ama Gaarisa ka yimaado ama Jigjiga ka yimaado ama Jabuuti ka yimaado showga waa qaadacnay ninkaas hadalkii ka soo yeeray waa hadal Soomaaliland ceeb ku ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan cabaar ku ah go'aan ka san gaaray ana gaaray oday Soomaaliyeed gabadha waa hal karo waa ninkii sheena culaya maxaad biikay waxaan leenahay war rafaaga u tur dufku baxe maalin walba halkaas waxa la soo fadhidaa hadal xun baa la soo fadhidaa war waxay xillisada Suudaan ma kulay nacala shidan ku yaal war Suudaan anu kula hadlayno inta ka badan ku oran karmayno war meesha iska qaad wajiga gooyan ku oran maxay tahay xaas maalin walba waa dhaq hadal baa ka soo dhacay maxay tahay sidii xaarkiiba hadal ku qabanaya markaas hadal waxba xiriireen war hadalka waa la kala haraa waxa la yiraahdaa wuxuu meel dhow ku dhaca warna meel dheer buu ku dhaca hadalkii aad tiri maanta qof Soomaaliyeed oo dhagihiisa ku dhicin iyo midaan ka dhixin ma jiro warabaaga u tur nacala shidan ku yaal wallahi billahi tala saa ku qato barida ku dhufto وأنا شين عليها إذا نعم راشد دم كفيديو وسي شير قري تراك سبسكرايب صار لايك وكومنت كل صوب بدي أنت برهان كلام كل مدة نوح إنه كلها فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.